Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan daawadayaasha nagu xiran meel walba oo adduunka ka joogtaan iyo si walba oo aad noo daawanaysaan, kusoo dhawaada muuqaal cusub. Channelka aad naga daawanaysaan waa Maadis Media. Muuqaalka maanta idiin hayno waxa uu ku saabsan yahay dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad aad loo soo agaasimay, taasi oo ka dhacday Al Caasima hotelka lagu magacaabo. Xafladaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyay TikTok stars ama xidigaha TikTok ama dhalinyarada ku sugan Muqdisho ee isticmaasha TikTok. Xafladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay fanaaniin fara badan iyo waliba dhalinyaro fara badan oo TikTok isticmaasha. Xafladaasi oo loogu talagalay munaasabadda ciida oo ay kula qaadanayeen dhalinyarada TikTok isticmaasha taageerayaasha ama dadka daawada, balse dad iyo fara badan ayaana xafladaasi ka qayb galin oo ka mid ah dadka aadka ugu caanka ah TikTok. Dadka aanan ka qayb galin waxaa ka mid ahaa Salma Yariisi oo ah gabar yar isla markaasna soo bandhigta muuqaalada TikTok la soo dhigo weliba qaab shactira ah. Gabadhani ayaana xafladaasi ka qayb galin. Sababta ay Salma Yariisi uga qayb gali weyso kulankaasi ay ahayd casuumaad xumo iyo weliba mansab weyn oo la siin waayay. Sidaan ka warqabno, dadka qabanqaabinaya xafladda ayaa waxa ay sameynayeen casuumaad, isla markaasna badanaa dadka ay ku casuumayeen xafladda ay ugu tagayeen guryahooda una sheegayeen inay duwa muuqaalo ay ugu sheegayaan taageerayaashooda inay kasoo qayb galaan xafladaasi. Dadka xafladda qabanqaabinayay ayaa sameeyay in dadka qaar ay ugu tagaan xaafadooda halka dadka kalena aanan la wicin, sidaas darteedna ay ugu baaqatay gabadha yar ee Salma Yariisi. Sidoo kale waxaa xafladaasi aanan ka qayb galin Ayuun Qurux oo ka mid ah dhalinyarada ama dadka isticmaala TikTok ee ku sugan Muqdisho, balse Ayuuni ayaa hore muuqaal idinkugu baahiyay waxaa idinkugu sheegay inay iska joojiso barta TikTok, sidaas awgeedna aynan ka qayb galin xafladaasi. Balse Salma Yariisi ayaa noqotay dadka ugu caansan magaalada Muqdisho ee TikTok isticmaala aanan ka qayb galin. Sidoo kale waxaa xafladaas aan ka qayb galin tiim maxkamadaha oo iyagana ah dhalinyaro TikTok aad ugu caansan. Markii uu barnaamijkaasi dhacay ayaa waxaa tiimkii qabanqaabinayay isla barnaamijkaasi ay keeneen barnaamij kale oo lagu magacaabo TikTok Muqdisho oo lagu codeynayo dadka TikTok isticmaala, taasi oo iyadana khilaaf kala keentay oo dhalisay khilaaf hor leh oo TikTok ka dhashay, iyadoo ay kasoo horjeesteen barnaamijkaasi tiim isiibo aan ku siistay oo ayagana muuqaal soo duubay ee barnaamijkaasi ay ku sheegeen inaysan ka mid ahayn. Muqdisho TikTok abaad baryahan TikTok warkiisa dhex socday. Marto Muqdisho TikTok abaad yaa TV miya channel miya idaacad miya ilaa hadda waxaad tihiin meesha ka socotiin barnaamijka awoodatiin waxaas dhan anaga waxa waa lama socon ma fahmino. qof walbana macnaha oo shakhsi oo qofka uu taageero markuu cod siinayo qofkaasi qofka codka uu siinayo inuu ogaado la rabaa oo ku qanco markuu codka siiyay cod siiso inuu dhaw codkii way xirtay bareefada ka dhigtay qofka suu ogaana marka adama codeyno sid ma shacabka codeyno kaaga daran mideeda kale ani aaba ka yaabado wax walba horta shirkadihii iyo idaacadihii TV-du waa meesha laga rabay kuwa TikTok ka mid ahaaba shaqo ka wataan be kaaga daran natiijadana bareefada ay sii dhigteen ini kuma mudugno baasha karo waxaas inniga aqbalays malahan shacabka hadii waxa qabanaysid oo fikrad Ilaahay kugu dhaliyay shacabka codkooda haarka milin doolar wala ini kale uu baasha leeyahay hada kala tiimka soo wargeliyay tartan hebel jiro aq qayb galowsiin ogaada ina dib ma ku ogaan oo shacab lama oga khilaafkan xilliga uu socon doono, balse waxaa xaqiiqo ah in istibayaa iyo maamul xumo jirta awgeeda ay dhalisay in dadka qaar ay iska soo horjeestaan isla markaasna ay diidaan inay ka qayb galaan barnaamijyada qaar ay qabanayaan dhalinyarada TikTok isticmaala. Sidoo kale waxaa jiro dhalinyaro loo jeedinayo dadka barnaamijyada iyo weliba barnaamijyada TikTok loogu talagalay ee qabanqaabinaya in ay sameeyeen tiim ayaga isku xiran isla markaasna barnaamij walba ay qabanayaan keligooda ay sameeyaan, taasi oo iyadana dhalisay in tiimamka kale ama dhalinyarada kale ee TikTok isticmaasha aysan ka warhayn waxyaabaha dhacayo ee mararka qaar ay dhalinayso khilaaf, taasi oo ay keento inay kasoo horjeestaan barnaamijyada qaar sida hadda dhacday oo kale oo tiim isiiba aan ku siisto ay kasoo horjeesteen barnaamijka hadda socda ee lagu magacaabo TikTok Muqdisho.
waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay channelkan ku cusubtaa subscribe saar like saar muuqaalka next video ayaa inoo balanaano caafimaad qaba iyo adigoo caafimaad qaba sidaas iyo nabadgelyo bye bye